xafladan oo ahayd xaflada lagu weyneynaya xuska sanad guuradii 52 ee kasoo wareegatay maalinta xornimada Soomaaliya iyo waliba isku biiritaankii waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya isla markaasna lagu qabtay hoolka ururka dhalinyarada Kanave ee magaalada Helsinki si weyn ay uga soo qayb galeen dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed ee wadanka Finland waxaana xafladaasi ka dhex muuqday dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan dhalinyaro odayaal iyo waliba gabdho oo muujinaya shucuurtooda ku aadan maalinta xornimada Soomaaliya qaar kamid ah xubnahaasi iyo dadweynaha kasoo qayb galay ayaan wax ka weydiinay dareenkooda ku aadan maalintan oo ah maalin si weyn ba ugu weyn dhamaanba bulshada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaana kamid ah hadaladoodii bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu Cabdulqaadir Axmed Nuur Hadaafow anoo fursadan ka faa'iideysanaya waxaan jecelahay inaan halkan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer Finland aan ku iraahdo hambalyo munaasabada ku aadan sanad guuradii 52 ee ka soo wareegatay maalinta xorriyadda iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed waa maalin weyn waa maalin taariikh mudan waa maalin mudan in la xuso oo loo damaashaado loo dabaaldego si gaar ah waxaan rabaa inaan munaasabadan uga faa'iideysto inaan u mahad celiyo bahda saxaafadda oo ugu horeeyo telefishinkan ee Somali Channel bismillaahir rahmaanir rahiim walaal adigoo mahadsan adigiyo telefishinkiinaba oo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaad qayb Finland kamid ah aad hadda noqoteen waxaan idinkugu hambaleynayaa sanad guuradii 52 ee xornimadii Soomaaliya ka soo wareegatay iyo maalintii ay labada gobol isku darsameen oo Somali Democratic Republic ay suubsantay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تي في جنال سومالي جنال وأنا مالين حرية الصومالية وحنا هلكن كسلامة يا شعب كصوماليات ميلو بيجوجان وحنا ليه هاي سنة جورة حرية أما من مدة الصوماليات هجرتو هجوكتو مقعي وأنا معمر وحكم لها جالية الدقل من هالهلسنك ودك فيلان محامات فرحنا هنا أسكون مغني كل ودولية وأمانة إنه حرمة قاضي أسكون درسك يوم يقولوا قوي كوفو dhammaan Soomaaliyeed meel kasta ay joogto gudaha iyo dibadda ugu hambalyeynaya Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxa aad ugu faraxsanahay in maanta telefishinka Somali Channel iga wareysanaysiin aad aad ugu faraxsanahay meesha Soomaalida in aan ka nimaano oo Helsinki in aan dhalinyarada Soomaaliyeed aan macnaha moraal siino oo uga sheekeen macnaha waxyaalo kale inay jiraan oo ka soo qayb galna xataa meel Soomaaliyeed joogto aad iyo aad ugu faraxsanahay aad ugu faraxsanahay maanta dhalashada Soomaaliyeed oo dabaaldega kooda luuliya ummadda Soomaaliyeed dhan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh farxad ku ciida bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa walaalaha Soomaaliyeed adduunka meel walba ay ka joogan kuwa qurbada iyo kuwa wadanka joogaba waxaan leeyahay oo guuriyo waxaan leeyahay yoomul ciid waxaan leeyahay farxad wanaagsan waxaan u mahad celinayaa marka koowaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala kadib waxaan u mahad celinayaa telefishinka Somali Channel oo maanta meeshan nagu siiyay channelskan inaan aan uga hadalno munaasabadan maanta 52 sano oo wadanka Soomaaliya uu buuxiyay waxaan leeyahay insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo sanadkan inuu ka dhigo Ilaahay sanadka khayrka Ilaahay inuu ka dhigo sanadkii aan horumar sameeyno xafladan ayaa ahayd mid ay si wanaagsan u soo agaasimeen dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed ee wadanka Finland iyadoo lagu qabtay xarunta dhalinyarada ee Kanava waana sanad guuradii 52 ee lagu dabaaldegay maalinta xornimada Soomaaliya oo ay isku darsadeen waqooyiga Soomaaliya iyo koonfurta Soomaaliya Maxamed Bashiir oo Maxamed telefishinka caalamiga ee Somali Channel Helsinki Finland